عليكم صاحبي سو هذا waxaa fiidiyoa duubayo saaxiibkiin axmedey insha allah bina alkarim halkan waxaa ku duubi doonaa fiidiyogaas oo insha allah isleeyahay dhalinyarada waxbay ka faa'iidi kartaa insha allah waxaan rajeynaynaa wax ka faa'iidi doontaan fiidiyogeena wuxuu ku saabsanaan doonaa lacagta euro USD la dhaho analysia oo asbuuc dhow ka soo dhigay groupkeena telegramka haddii aad ku jirin telegram groupkeena ahay trading fadlan ka mid noqo asxaabteena saaxiib yaal waxaan kula wadaagi doonaa sadaqaas iyo qaabka mataqaanaa qofka uga faa'iidaysan lahaa waxaan rajeynaa insha allah inuu qof qaabka u marayo markuu arko inuu aqoon ka faa'iidi doono waa mahadsantiin saaxiib yaal soo dhawaada mar labaad waxaan bilaaban doonaa analyskeena iyo qofka qaabka traderka u diyaarsan karo insha allah sida ogtii ana waxaa istiraatiijiyada isticmaalo waxaa la dhahaa SMC waa smart money concept waxaa isticmaalana smart money concept marka saaxiib yaal analyskeena ama qorshaheena guud waxaa kasoo bilaabi doonaa dhiliga kasoo bilaabeynaa waxyaalaha mataqaanaa ugu horeeyo oo aan fiirinayna waxa weeye suuqan meel supply ah ama meel demand ah miyuu joogaa talabaad oo ah suuqa ma suuq ku socda bahalkiiba suuq ku socdo abtrainba oo meel demand joogo meesha suuqu waa suuq ka oppositekiisa ah oo ku socdo downtrain ama yani suuqu meesha ku socdo inaa ogaano talabaad waa noo muhiim sababtoo ah suuq inta badan suuq usoo socdo suuq bay ku socdo haddaa fursad seela ka raadino inta badan nama saacidayso laakiin suuq seel ku socda seel ka raadino suuq bay ku socdaan haddaa bay ka raadin goormahaas seel ka raadin karnaa goormahaas bay ka raadin karnaa marka waxyaalaha qiimeyn waa maxay levelka uu joogo ama point of interest markaas uu taagan yahay ama uu joogo ama uu ku socdo inaan ogaano midda labaad oo ah waxyaalaha aad ku muhiimka waxaa kamid ah daily point of interest ama daily supply and demand aad bay muhiim u yihiin meelaha suuq inta badan laga u ka raagti karayo marka taas waxa kaloo hadda marka meesha kooda ka bilaaban waxa weeye suuqan horta xaggee u socdaa suuqan meesha u socda waxaa fiirin karnaa suuqan hadda hoos u socdaa meesha u dambeysay oo jihada ka bedeshay meeshaan ahayd saa jeclahay madan tahay tahay okay that means halkaan waxa weeye meeshaan waa structure okay soo qaadba structure-ka caadiga halkaan la fiiriyo structure meeshaan suuqan meeshaan dhow trainka kasoo bilaabay meeshaan tahay inuu meeshaan kasoo bilaabay group of structure group of structure kale okay group of structure okay group of structure halkaas maxaa ka aragnaa marka suuqan waa suuq ku socda dhow train dayliga marka la joogo waa suuq sameynaya siiqad ah down sameynaya group of structure oo down oo jiyo marka calaamsano dayliga markaa joogno high of day mataqaanaa ishaan swing high swing low daily marka la joogo waa laba meelood ba waxay nootaa meesha u sarreyso dayligan gaaray iyo meesha u sarreyso meesha u hooseyso dayliga gaaray okay waxa kaloo muhiimka ah waxa weeye iyadana marka meesha u baahannahay waa
suuq meeshaas markuu marayay inaan ka faa'iidaysano. Okay, suuq structure noocaas sameeyay suuq aan dhaadayo ognahay laakiin waxa u baahannahay inaan mataqaana marka halkaan saa ujeedid waxa weeye waxa management uu sameeyey sababta structure-ka markuu jabsanay waa structure ku dambeeyay uu samaystay mana uusan samayn muxuusan samayn oo kale halkaan marka waa kan meesha u baahanahay point of interest u baahanahay kan oo dhan ii raacay. Okay, marka levelkan muxuu leeyahay management marka uu ka fursad fiican yahay levelka aan ahayn. Okay, levelkan muxuu leeyahay kan leeyahay okay inta marka aan sameeyo oo inta aan ogaado maxaa tegaya marka for hour-ka tegaya for hour-ka marka aad taho waa inaan ogaadaa marka for hour-kuna halkee waa change of structure oo halkee waa for hour structure-keenu meesha aan for hour ahaan fiirinayno waxa weeye I can move back not have for this. Yes, this is a move back. Okay, back not I for our structure عشان reference new رجعنا أبديت في structure محامر سوقان مركو سان كسocdo maxaa awood leh suuqan damo uu halkan ku socdo maxaa awood leh waxa wali suuqan awood leh waa supply awood leh halkan sidoo kale supply awood leh maxaa markayna marka damo suuqan uu supply awood weyn yahay oo supply-gan aan suuqan supply-gan la jabsado oo dhimaaniski xaggan ka jiray la cunayo waa damo suuqan uu dhowr yahay damo suuqan la cuno supply-gan oo adana supply ka la cuno almost halkan supply-ga yarka waa lunay oo nahalka markii la joogo waxa u baahan tahay nahalka markii la joogo kan waa la react gareeyo kan noqday ka bacdi uu jabsado laakiin soo maxay waa aali waxyaalaha cadeymaha u horeeyo oo aan ka heli kadib suuqan uusan isin jirin there's no more mataqaana sel suuqan ka sii jiray isin jirin marka halkaas kale markay marayso waxaa u baahanahay marka waxa weeye suuqan waa hela marka fursadan laftirkeeda qofku ka faa'iideysan karay hadduu u baahan yahay waa fursad almost fursad weyn weeye almost oo ah 190 bid wax badan weeye oo fursad uu ka heli karay marka fursadaas anagu u baahan fursad waxa u baahanahay fursad baan la soo inaan marka for hour-ki waa helnay for hour-ku meesha u socdo waa helnay hadda for hour-ku maxaa helnay in meesha halka hadduu suuqaas u jabsado inay tahay change of character oo change of trading inuu factor isku bedelay for hour-ku sababto kan low ma aha waa marka la joogo for hour-ka sababto one hour halkan candle body close maana helin waxaana helaa candle body close so halkan oo kale uu jabsaday maadaama uu jabsaday suuqaani wuxuu isku bedelay factor isku bedelay. Okay, suuqa maadaama factor isku bedelay low waa halkan high waa halkan low almost another high cusub baa samaysmay. Okay, suuqaas maxaa uu confirmation maxaa helaa second break of high baa helaa oo after okay kan fiican marka kan muxuu yahay almost kan oo kale muxuu yahay waa calaamadeeda labaad oo cadeynayso suuqani uu abtrain uu cadeystay abtrainadiisa uu cadeystay so
sababtoo ah maxaa haystaa kow halkan ka dhigay waxaa haystaa marka u horeyso waa fast break of structure wey marka suuqu markaas oo kale marka uu sameeyo uu change saana kale ku socdo training down trainer ku socdaa marka kow markuu jabsado uu soo noqdo uu mid labaad jabsado markaas maxaa raadinaya fursad noocaana ka bacdiya markaas suuqa u sii raacaya okay fursadda marka waa fast break maxaa ah kan suuqaani muxuu ahaa waa change of character halkan maxay u tahay halkan kooda waa down trainer ku socotay this was the first structure meesha rabo inuu ka jabsado markuu meesha jabsado waxaa dhacday change of character baa dhacay oo ah tii koowaad marka la helo break of structure labaad la helo waa marka confirmation la helo toos ah oo suuqaan noqonayo oo ah suuqaan inuu yahay uptrend u noqday markaasay ku cadaanaysaa markaan waa suuq wuxuu soo karaa liquidity grab uu soo karaa liquidity ama tii karaa uu soo cuni karaa ka bacdi soo dana downtrend ku socon karaa laba rabo laakiin marka uu kan tuu jabsado mar labaad ka jabsado markaas ba waxa cadaanayso in suuqaan uu yahay suuq uptrend marka maxaa intii kale hadana ka raadinaya marka maxaa ka raadinaya intaas oo kale waa ka hela marka laakiin suuqaan uptrendnimadiisu uu yacaystay okay maxaa marka hadana wax labaad u baahan waxa weeye suuqaan markaan hadda marka bartaas dhacday halkan maxaa ka haysta halkan dhiman zoono aad u badan baa ka haysta hada areadan oo ah green engineman ah dhiman zoonka waa halkan fursad ka banaaneed fursad ka banaaneed maxay ahayd marka fursad halkan ka banaan waa fursad almost ayaduna ah hadii aan low time frame sheetigno oo ah casing almost 200 bibiyana unto 120 haba inta asalka qaad ku xirnaan doonto fursadaas marka way dhacday oo kama faa'iideysan ama hada ka faa'iideysto ma sha Allah kasi fiican fursadda labaad oo ah in amar labaadna bahalkiisheena meeshaan ka faa'iideystid oo ah in structure breakdown mar labaad ka faa'iideystid okay structure breakdown baa ina ka faa'iideysto u baahanahay hadii la kuuran yahay halkee marka iyaan oo markaan kow meesha u horeyso area dhan waxay tahay area muhiim ah أنا أركنيت كان دمان كي أبا أنا مر وأنا هلا 15 بريك ستراكشر وأنا هلا 15 كيتك جديداً شغل وأنا هلا 15 بريك ستراكشر كبعدين مركز إنتي رسالين كذا almost saa u jeedno suuqan halkan liquidity badan halkan lagu celcelinay qornay oo ah oo tan u horeyso liquidity aan qornay almost wuxuu yimaadaa levelkan 15 minute levelka marka say ila tahay kan liquidity aan qornay liquidity aan noqon doono oo badan tahay okay hasta waxa hasta 15 minute structure oo halkan ah maxaa la sameeyay marka 15 minute structure kaas 15 minute structure ka break baa lagu sameeyay break marka lagu sameeyay and then maxaa kaloo halkan kor ka hasta
ayadana pre-kala ka haysta almost meeshaan marka labada hel maxaa haysanaya si kalsooni ah oo aan baqdin ku jirin waa inaan intriga u dhigataa intriga alien dhan baa dhigan karaa intriga almost intriga meeshaan dhigo asalka dhiganaysid font baa dhigan karaa amse haddii USD oo kale 13 bib waa isticmaalaa 12 bib 13 bib yari okay almost u ibooday trade management waxyaalaha dadku ku dhibaatada waxa weeye trade management koox ayman ma leedahay trade management waxa weeye trade heerka aniga trade management waxa weeye trade-ku each trade 1% trade kasta ku qaado qodobka labaad waxa weeye 1 to 2 markuu gaaro target ah half 50% la bax inshallah trading plan-kan ka guustoona qodobka saddexaad oo ah trade-ka waxa ku yiraahdaa SL oo TP qaybta labaad waa remaining marka halkaas waa maxay halkan trade-kan waxa ku qaatay 12 bits 24 bits TP baa ka qaadanaya okay TP ma ka qaata trade-kan waa TP 1k halkaas هاي تيبون لا 1 to 5 بس يدينيا ترى كان مقرأ ده هاي كانوا قرأت أركضية هذا بغل من كلام الله شكرا أركا بس يدينيا ترى كان تيبون ويقول عي يتكلموا بس يدينيا براك اوكي سوري تيبون وكالي حاسو يامر almost halkaan waa lii cunay majeeda liguditikan waa la cunay liguditiga waa la cunay marka inta markaan labadan liguditidan lagu aruuriyay waa lasoo cunay marka hadda aragto meel ku noqon waa meel ligudito ana cuna rabo halkaan maxaa marka ku jira marka halkaan eedan waxaa ku jiro liguditi aad u badan meeshaan fadhida ay rafirkeeda marka suuqu saajara markaas oo kale korkaas u tegaya marka ilaa iyo almost areadan inuu taga macquul ilaa areadan sababta u leeyahay maxay at least waa inuu cunaa liquiditidan meesha daadsan okay let's see marka waxa dhici doona almost entry soo noqday تقدر تقول maxaa marka suuqan maxaa sameeyay marka halkan maxaa ugu qoran maxaa sameey lahaa halkan SL oo TP ba SL kuma dhicin entry intuu ku noqday buu TP ku dhacay almost marka halkan markaan oo kale realistic target ma aha laakiin haddii structure isticmaalaysa waa the best structure qofku TP ahaan u isticmaali karo almost waa 130 USD okay ma aha wax weyn ma aha okay marka wax caadi ah صاحب يال وحرجيني إن شاء الله هنا فيديو راح كفايدين نحن حبتنا هي هذا وما سنتين صاحب يال إن شاء الله بين الكريم راح نوبلنا فيديو كذا ما سنتين صاحب